arrimaha federaalka waa arrimo ajnabi waaye oo dad aan dhaqan wadaagin ama aan diin wadaagin wax loo kala qaybinayo teena laakiin waxa naloo qaybiyo waxa waaye in wadanka la qaybiyo oo quwadda Soomaaliya la burburiyo runtii madaxweyne ma xukumi karo psychology ahaan markaad fiiriso qofka hadii la yiraahdo hebel oo madaxweyne tahay daniyo madaxweyne tahay waxaan qabaa markuu horeysa in degdeg aan ka dayno dawladnimada laakiin la gaarsiiyo dadka qof iyo cod la gaarsiiyo horta waxaan soo jeedin lahaa in 5 sano laga dhigo waayo waa aragnay nin kastoo 4 sano la siiyo waxa ku dhamaanaysa isagoo wax qabanin bismillaah walhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa taatiko ma xasantahay aniga magacayga waxa la yiraahdaa Axmed Cabdulle Al Ariish waqtigayga badankeeda hadda waxaan ku soo qaatay qurbaha sanadii u dambeeyay waxaan joogay meesha la yiraahdo Soomaaliya gaar ahaan gobolka Hiiraan ma ahi siyaasi muxaafidna ma ahi mucaaradna ma ahi laakiin waxaan ahay muwaadin oo macnaheedu yahay muwaadinku inuu ka hadlo wixii ummadda anfacayo uusan wax qabiilana ka hadlin wax dan gaar ah oo qof leeyahna ka hadlin marka waxaan rabaa insha Allah inaan taageero maanta muxuu ahaa golaha wadatashiga qaran iyo madaxweynaha go'aankii ay gaareen oo ahaa in la sameeyo doorasho qof iyo cod ah hal marna ay doorashadu dhacdo waa arrin runtii aad u wanaagsan oo aan ku taageersanahay muxuu ahaa arrimahaas waxa looga baxayaa marka madmadow badan oo jiray waqti dheer oo Soomaalidu ay wax ku soo dooranayso qabiil ku beesgaraysan oo qofka la soo dooranayo xitaa inta badan uusan ahayn qof u qalma hawsha loo diray waana waxa dib loo dhigay waay arrinkaas haddaan inta ku daayo waxaan qabaa madaxtinimadan iyo doorashadan degdeg ah oo 4 sano kadib la isku eriyanayo oo la leeyahay taariikhka waa ka dhamaaday ka soo bax wax ummadda Soomaaliyeed dan u ah maaha marka anigu waxaan dhihi lahaa laba qodob meeshaas in laga sameeyo horta waxaan soo jeedin lahaa in 5 sano laga dhigo waayo waa aragnay nin kastoo 4 sano la siiyo waxa ku dhamaanaysa isagoo wax qabanin bal sanadka shanaad ee mar walba leeyahay waxbuu ku rirsanaya in loogu daro horta waa qaba arrinka waxa kale oo qaba isbedelku wax macnaha loo sameeyay ma jirto waa aragnay hadda dawladii u dambeeyay Sheekh Shariif markaa ka soo bilowno oo aan farmaajo ku soo xijino ninka la yiraahdo Xasan Sheekh oo aan farmaajo ku soo xijino oo aan ku soo celino ninka la yiraahdo Xasan Sheekh waa oo shakhsiyaad baa isbedelay shakhsiyaadka isbedelaya marka waxay keenayaan dib u dhac mar walba waayo ninkii hore qaab uu u fakarayay oo rabay inuu wax u qabto markii meeshii laga qaado nin cusub iyo dad cusub iyo team cusub ayaa imaanaya oo meeshii ka bilaabaya iyaguna meeshii ay rabeen inay ka bilaabaan oo waliba isku dayay inay burburiyaan tii hore taana waxa ku burburtay danihii ummadda Soomaaliyeed ayaa ku burburtay marka waxaan qabaa horta in lagu degdegin doorashaan rabna waayo ninka meesha ka tagay ka imaanay oo laba nin oo Soomaaliya waay nin hadda si gaar ah dadka uu wax ugu qabanayana ma jiro waayo qof kaligiis wax ma qaban karo marka waxaan qabaa arrinka degdega ah inaan bal markan xoogaa cagta u dhigno maadaama laga soo baxay isbedel badan oo ku soo dhacay dawladnimadii haddana meeshii ficilada ay marayso wadanka kheyraadkiisii la rajaynayo inay dhawaan soo baxaan waxaan qabaa markuu horeysa in degdeg aan ka dayno dawladnimada laakiin la gaarsiiyo dadka qof iyo cod la gaarsiiyo ama ha ku tagto sanadkii barka dawladda u dhiman ama 6 bilood ha ku darsato ama sanad ha ku darsato waxaan qabaa marka in la dejiyo oo cagta loo dhigo waxa kale oo qabaa in doorashadu madaxweynuhu uusan u soo noqonin muddo ka badan 2 teeram qofka hadduu qabto way ku filan tahay inuu xaqiijiyo yoolkiisa iyo meesha u socday midda kale Soomaalidu waxa loo keenay nidaam federaal la yiraahdo loo keenay oo aan dhaqan aan loo lahayn waayo Soomaalidu wax loo kala qaybiyo ma jiraan waa Soomaali luqadda waa Soomaali muuqaalka waa Soomaali dhaqanku waa Soomaali dalka waa la wada leeyahay waxa la rabaa qofka Soomaaliga marka meel ka soo degan yahay inuu siyaasadda ka soo galo noloshana uu ku noolaado ganacsiga uu ka samaysto marka arrimaha federaalka waa arrimo ajnabi waaye oo dad aan dhaqan wadaagin ama aan diin wadaagin wax loo kala qaybinayo teena laakiin waxa naloo qaybiyo waxa waaye in wadanka la qaybiyo oo quwadda Soomaaliya la burburiyo waliba taariikhda marka dib u akhriso waxyaabihii kalifay in Itoobiya ay Soomaaliya qayb ka mid ah haysato oo Kenya haysato waxa ka mid ah xilliyadaas waxa jiray qaybsanaan Soomaalidu ay qabiil u qaybsanayd
boqortooyin yar yar jiray oo mid qolo walba ay qabiil turjumayso ama degaan turjumayso oo iyagu dagaalamaya oo iyagu maaragtay ama gumaysigu uu soo adeegsanayo ama Itoobiyaanku ay soo adeegsanayeen mar walba gumaysiga laftirkiisa Itoobiyaanku waa kamid taas ayaa waxay keentay marka in wadankii hore loo qaybiyo tanna waxay keenaysaa in wadanka la sii kala qaado waxa inta ay weheliya magacyadan lala baxay oo madaxweynayaasha runtii madaxweyne ma xukumi karo psychology ahaan markaad fiiriso qofka hadii la yiraahdo hebel madaxweyne tahay daniyo madaxweyne tahay xasan shiiqo madaxweyne tahay hadii madaxweyne waay waxay keenaysaa marka in tartan uu jiro oo ay gama sareysid iyo ka yeelimaayay iyo waxaas Mareykanka oo naga weyn oo naga awood badan oo halkiisa state laga yaabay Afrika oo dhan inuu ka dhaqaale badan yahay ninka xukuma governor la yiraahdaa ama Soomaalidu Talyaaniga isticmaal jirto governatore ama gudoomiye gobol marka ani waxaan soo jeedinaa taas waxyaabaha dhibaatada loo keenay kamid tahay in gadaal loo celiyo insha Allah oo lagu celiyo inuu governor noqdo